السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta muuqaalkeenan wuxuu ku saabsan yahay motivation ama motivation habba sidaad ugu dhawaaqdid weeye. haddaba sidaad wala ogtihiinba toddobaadkii lasoo dhaafay wax muuqaala maanan soo gelin channelka caqabada aawadeed jira ayaana u soo gelin waayay. haddaba maanta waa muuqaal xasaasi ah oo wax badanna aad ka faa'iidaysid. ma igu waafaqsan tahay haddii aanad niyad u haynin shaqadaada inaanan qaban karin? inuun ma garanaysaa ruux shaqo fiican haystay, lacag fiican qaadan jiray, haddana shaqadii iskaga tegay maxaa yeelay jacayl iyo niyad ayuu u waayey. marka aad niyad beri ah u hayso shaqadaada waxaad u helaysaa xamaasad, karti aad ku qabatid shaqadaas. taalidigeeda haddii aanad niyad u haynin shaqada uma helisid awood aad shaqadaas maalintaad ku qabatid. natiijaduna waxay noqon doontaa inay shaqadaadaasu ay burburto. haddaba muxuu yahay dhaqaajiyaha motivation? kelmadan asalkeedu waa kelmad laatiini ah oo macnaheedu yahay dhaqdhaqaaqa ama dhiirigelin ayay noqonaysaa markaad ku baadhid. haddaba maxaa dhaliya dhaqaajiyaha? iyo ogolow inaan kaaga qisoodo ama kaaga sheekeeyo wiil yar oo u tegay mid ka mid a odayaasha ugu xikmada badan leh si uu uga barto sirta guusha lagu gaadho. wiilkeera ayaa u tegay odayaasha ugu xikmada badan leh wuxuuna ku yidhi, maxay tahay sirta guusha lagu gaadho? odaygii ayaa ku yidhi, sirta guusha waa doonis adag oo xoogan. wiilkeera ayaa ku yidhi, halkee ay ka timaadaa doonista adag ama maxaa dhaliya? odaygii xikmada badnaa ayaa ku yidhi, doonista adagi waa sida dabka holcayo oo kale weeye doonista adag. wiilkeera ayaa yidhi, sidee ayay nagu dhalanaysaa doonista adagi? odaygii xikmad badane wiilkeera wuxuu ka dalbaday daqiiqado yaryaroo kooban, wuxuuna soo qaaday weel biyo ay ka buuxaan. markaasuu wiilkeera weydiiyey oo ku celiyey, ma iga hubtaa inaad doonayso inaad ogaato waxa dhaliya doonista adag? wiilkeera ayaa ku jawaabay, haa, waan doonayaa waxa dhaliya doonista adag. odaygii xikmad badane wuxuu ka dalbaday wiilkeera inuu weelka u soo dhowaado kadibna uu fiiriyo weelka ay biyuhu ku jiraan. wiilkeera ayaa fiiriyey. soo fiirinaya ayuu odaygii si lama filaan ah wiilkeera intuu madaxa qabtay ayuu biyo ku muquuriyey. dhowr ilbiriqsi ayuu sidaa ugu hayay. kadib wiilkeera markuu neef qabsoobay oo naqaskiina ku dhegay ayuu si degdega wuxuu awood u lahaayoo dhan uu wiilkii isticmaalay iskana furfuro odaygii. isagoo cadhaysan ayuu ku yidhi, eeyaahe waa maxay sidani waa maxay? odaygii xikmad badane ayaa isagoo degan oo dhoolla caddeynaya ku jawaabay, maxay tahay waxaad ka baratay tijaabadan aan kuu sameeyey? wiilkeera ayaa ku jawaabay, waxba kama aan baran haba yaraatee. odaygii xikmad badane ayaa intuu wiilkeera sidaa u fiiriyey ku yidhi, wax badan baad ka baratay. daqiiqadii ugu horreysay waxaad doontay inaad madaxaaga biyaha ka soo saarto, laakiin doonistaadu mana ahayn mid xoogan, mana aanan wada isticmaalin awooddaada. laakiin ugu dambayntii markaaad halis gashay waxaad isticmaashay awooddaada oo dhan si aad naftaada u badbaadiso, waanaad ku guulaysatay arrintaas. maxaa yeelay cidna awood uma laha inay ku hor istaagto. haddaba wiilow, markaad doonistaadu ay gaadho heerkaas waxaad gaadhay guul baad gaadhay wuu ku yidhi. waxaanu qisadan ka faa'iidaysanaynaa inay doonista adagu ay tahay qaacidada ugu horreysa ee guusha lagu gaadhi karo, waana abuurka midheed ee dhulka guusha lagu beero. sirta guushuna waa dhaqaajiyaha motivation ama motivation habba sidaad ugu dhawaaqaysa ayaanu soo qaatay. dad badan ayaa dhawaaqa, qaarba sibay ugu dhawaaqaan, markaas ayaan labada dhawaaqba u soo qaatay, balse waa isla hal kelmaduuna. haddaba qiso yaroo kale ayaan soo qaadan doonaa ee gabadh ku dhacday, waxayna qisadan u tahay cashar hablaha muuqaalkan daawanaya haddii inan soomaaliyeed muuqaalkan daawanayso. waxaa jira gabadh xaasadeed oo 5 caruura lahayd. xidhiirka iyada iyo ninkeeda aad buu fiicnaa. xuquuqda ninkeeda si fiican bay u dhowri jirtay. waxay ahayd inan nasabaabeed. xuquuqda ninkeedna aad bay u dhowri jirtay. caruurteedana aad bay u daryeeli jirtay. iyadoo ay sidaa tahay ayaa waxaa dhacay arrin lama filaan ah. ninkeedii ayaa ka tegay oo naag kale iska guursadayba. laakiin halkii ay iyadu ka murugeyn lahayd ee ay ka ooyi lahayd
waxay ku waajahday duruuftii adkeyd, calool adag iyo kalsooni nafeed. Shaqo ayay raadsatay, waxayna ugu dambeyntii heshay inay noqoto nadiifiye hotel. Muddo ka yar 5 sano gudaheed ayay gabadhii waxay iibsatay hotelkii laftiisa. Gabadhaasi haddii ay ooyi lahayd ama murugoon lahayd, guusha ma ay gaadhi lahayn. adiguna ka faa'iideyso haddii ay duruuf adag ku soo wajahdo. Ha isdhiibin, Ilaahay tala saaro oo dadaal markasta. ogow hadduu albaab kaa xidhmo, albaab kale ayuu Ilaahay furaa. dadku intiisa badan waxay ku mashquulaan albaabkii ka xidhmay, balse Ilaahay bini'aadamka wuxuu la doonaa addoomihiisa meel kasta ay joogaanba meesha khayr kale inuu wado. hadduu albaab kaa xidhmo, albaab kale ayuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku furayaa. dhaqaajiyaa naftaadu waa ka sababa inuu qofku caadigaayay uu qabto shaqo heerkeedu aad u sarreeyo, gaadhana natiijo aad u weyn. waana sirta keenta inuu qofku inuu guul gaadho, waana ta keenta in dad badan noloshoodu faqri badan u dhaxeeyo. haddii ruuxu waayo dhaqaajiyaha nafta ee motivation ama ku dhiirigelin, taas waxay keenaysaa inuu ruuxaas dib u dhacay weyn oo dhinac walba taabanayo noloshiisa ay ku timaado. gabagabadii iyo gunaanadkii muuqaalka waxaan kugu soo gudbinayaa qorshe aad ku helisid dhaqaajiyaha motivation ama motivation, habba sidaad ugu dhawaaqdid. waana 3 qodob oo muhiima runtii, balse 3dan qodob furay u noqon doonaan dhaqaajiyaha motivation. qodobka koowaad, iibso buug yar oo xasuus qor ah. maalin walba ku qor 3 shay oo aad guul ka gaadhay, 3 shay oo guul maalinta aad gaadhay. isla maalintaa ileen suuragal maaha inaad maalin dhan waxba aadan qabane. maalin walba waxaad qabatid buugga yar ku qor wixii aad guul ka gaadhay. buugga yarna ku magacow ama ugu magac darba saaxiibkaygii guush oo maalintiiba hal mar akhri. taas waxay kaa saacidaysaa inay dhaqaajiyaha motivation uu hore ku wado. xamaasadna way ka helaysaa markaad haddaan maalintiiba hal mar akhridid. qodobkaas waa muhiim. haddii aad sidaas samayso, waxaad naftaada ku tartansiinaysaa inaad mar walba wax fiican samayso oo ay karti wanaagsan ay ku gasho iyo xamaasad. qodobka labaad, markasta oo camal aad u fiican aad qabato oo faa'iido ku soo horseedaya, naftaada abaal mari adigoo iibsanaya shay aad u fiican, naftaadana ku abaal mari. qodobkan waa muhiim labaad. nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo sheegay 3 asxaabi oo qashuuc qaaday ayaa nabiga loo sheegay, uuna nabiga u yeedhay. 3 asxaabi waxay yidhaaheen, mid baa yidhi anuu maalintii oo dhan waan soomaya, maalin oo dhan intaan noolahay maalin oo dhan waan soomaya. ka labaadna wuxuu yidhi anuu guursan maayaba, intaan noolahayba guursan maayan. ka saddexaadna wuxuu yidhi anuu salaad baan u taagnaanaya maalin iyo habeenba. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi naftiinu xaq ayay igu leedahay. xadiiskaasuna sidaas ayuu ahaa. haddaba halkaas waxaan ka arkaynaa inay naftiinu xaq inugu leedahay. qodobka labaadna waa sidaas aan soo sheegay. qodobka saddexaad, usbuucii hal mar isku day inaad samayso arrin u khaasaa adiga, arrin ku khaasa. isku day inaad akhridid buugaad kala duwan, akhriskana badi. waxaa layidhi markastoo aad wax akhrisid wax badan ayaad ogaanaysa. akhrisku waa muhiim. siduu jidhku jimicsida jidhka ugu yahay nafaqo, ayay maskaxduna ugu baahan tahay akhris. wax badan akhri, wax badan ayaad ogaanaysa. toddobaadkii isku day haddaanad buugaad lahayn inaad maktabada magaalada aad joogtid aad aadid aad soo akhridid. haddaba naftaada ku tababar 3dan arrimood ee aan ka soo hadalnay. isku day inaad maalin walba aad samayso shaqo guul ku horseedaysa, kana dhigo caado joogtaa ka dhigo 3da qodob aan ku sheegay iyo waxa aad adigu ku sii darsanaysid. haddaba muuqaalkeenan maanta intaasu ku heediyahay. intaa muuqaalka ka bixin waxaan leeyahay dad channelka ku cusubtiinba aadna soo booqateen markii ugu horeysay ee tahay channelka wad nagu soo biiraysaa. asxaabta halkan ku xidhan ba ka mid noqonaysaa. haddii hore noola joogteen muuqaalka leed bad saaraysaa si dad badan uga faa'iideysan. inta muuqaalka xigaan isugu iman waxaan iga tegayaa amaana Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.